dhalinyaradan maxaabiista ku ahaa dalka Iiraan ee dalkooda hooyo dib ugu soo laabtay ayaa waxaa hogaaminayay ambaashador Maxamed Xuseen Ooliyo asagoo dadaal dheer ka geystay sii deynta dhalinyaradan. qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa u mahad celiyay ambaashador Ooliyo oo gacan ka geystay sii deyntooda. dada oo nooga haray ma jiraan, asaga intii ugu dambeysay 24 mara iyo 3 mara iyo 10 ugu dambeeyay asaga ka soo qaaday dhibaato kasta ka soo maro qof Soomaaliya ma geli karo. waana u hambalyeynaa oo u mahad celinaynaa in badan buu ninkaas hawsheeda ku jiray ilaa iyo 8 bilood ah uu ku soo noqnoqonayay. marka aad baan ugu hambalyeynaa cid hadda naga hadhay oo meesha jidana ma jidho. waxa aan ku xirnayn meel karantiila ah oo macnaha dadka lagu cadibo haddii alla ku rooyahay halkii qofba waxa lagu xiraa meel keligii uu yahay muddo macnaha bil ah ama 2 bilood buu ku jiraa halkaas. cunada la siyaana wax macnaha wax weyn qaansaay bilaaadna cuni kara ma aha, asagana waa la dilaa oo noocaas loo galaa. mid ka mid ah odayaasha waalidiinta u ahaa garoonka soo gaaray ayaa u mahad celiyay dawladda Iiraan iyo ambaashador Ooliyo. waxaan dadka Soomaaliyeed waxaan dawladda u sheegayaa kuwa kale oo badan oo maqan baa jira, gacan cadow ku jira, ayagana in saas loogu dadaalo. annaguna waa garanaynaa ninkii wax noo qabtay iyo kaan wax noo qaban waa kala garanaynaa. ambaashador Maxamed Xuseen Ooliyo ayaa ka hadlay ugu dambeyn sii deynta dhalinyaradan. waxa uu sheegay in dadaal badan uu u galay sidii u sii deyn lahaa dhalinyaradan maadaama dawladda Soomaaliya iyo dawladda Iiraan wax ilaaqaad aysan lahayn. way jirtaa in badan hadda sidaad u jeedeen oo ayagu walaalahooda Cumaan ku xiran ay uga damqanayeen in dadkoodii iyo ehelkoodii ay dawladda bareeshar gareeyeen. laakiin waxaan rabaa inaan halkaan u sheego isxilqaankan wuxuu ahaa ilaahay ka sokooba mid aniga iga yimid macaariiftii aan ku lahaa saaxiibbadayda Iiraan iyo nin jooga Ciraaq oo aan Ingiriiska isla joognay. raggaas ayaa dhowr jeer waxaan u malaynayaa waa 8 jeer ayaan meesha ayaan tagay. 8 jeerba ayaga ayaa ii fududaynayay. waa 10kii ugu dambeysay dhalinyaro Soomaaliyeed ee ku jiray xabsiyada dalka Iiraan ee dib ugu soo laabato dalkooda hooyo. maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho.